inta la sacaanood weydo degmo inay hesho caleen taas waa dhurwaa hadduu xaakim noqdo ari xaq ma leh halkan waxaan ku qabanaynaa annagoo ah qabalaha birdheer shir jiraa'id kaasoo aan uga hadlayno dhibaatooyin deegaankan ka jira Mareexaan oo aan la qabin dawlad deegaanka Soomaalida marka hore waxaan salaamaynaa shacabweynaha Itoobiya marka labaad waa shacabweynaha DDS dawlad deegaanka Soomaalida waxaan rabnaa halkan inaan fariin ka gudbino fariintaas oo ku socota madaxweyne Mustafa Cagjar shacabweynaha Itoobiya kan Soomaalida dawlad deegaanka waxaan rabnaa halkan inaan ka sheegano dhibaatooyin gaar nagu ah haddaan nahay bulshada Mareexaan oo ilaa dhowr iyo 30 qabala ah taasoo aan la qabin dadka deegaankan degan hadday ahaan lahayd caafimaad hadday ahaan lahayd waxbarasho hadday ahaan lahayd jidad hadday ahaan lahayd anteen ka telefoonka lagu hadlo hadday ahaan lahayd degmooyinkii hadda la qaybiyay oo jawrfal badan uu nagu dhacay waxaa la dhahaa dhurwaa hadduu xaakim noqdo ari xaq ma helo tiibaa nagu dhacday inta la sacaanood weydo degmo inay hesho caleen taas waa dhurwaa hadduu xaakim noqdo ari xaq ma leh bahashaas gadaal ha loogu noqdo waxaan ka cabanaynaa maamulka dawlad deegaanka madaxweyne Mustafa Cagjar sida uu wax u qaybiyay kow labo hoos dawladda marka loogu daadego adeega bulshada oo baxa hadday isgaarsiin tahay hadday tahay maxaan ku iraahdaa caafimaad hadday tahay waxbarasho ilmaanagu waxbarasho ma helaan hooyooyinka naga dhalaya ma helaan umuliso isbitaal ma helaan ma helo ceelasha la qodo dhammaan adeegyada ay bixiso dawlad deegaanku banaanka kana waxaan degnaa 400 oo kiiloomitir iskuwaadaraati ah at least 39 qabale ayaanuna maybe boqolaal kun oo qof baa ku nool ma suuroobi karta aqliga bini'aadankuna ma qabo wax la iloobi karana ma ah annagoo aan ku raadinaynin maxaan ku iraahdaa fawdo annagoo aan mudaharaad dawladda ka soo horjeedo oo against dawladda lidku ah annagoon ahayn waxaan si degan oo ilbaxnimo oo qofka xuquuqdiisa uu ku raadinayo aan doonaynaa dawlad deegaanka xuquuqda uu ku leeyahay deegaan Mareexaan inaan helo oo gobolka Qoraxi way especially haddii DC hadduu yahay oo gudoomiye yahay hadduu gudoomiye gobol yahay hadduu governor yahay qofna xariiriya ma jiro annaga baasi voluntary waxaan ku nahay Itoobiya hal soo kala cadeeyo dhulkan dhul Soomaaliyeed inuu yahay inaan Itoobiya nahay xuquuq u leh waa ka baxay